حسنات على السوق ويمكن درس كجاديه ولا لها كور كسو قرمدي ولا لها هوس كسو قرمدي ولا لها دافع كسو قرمدي ولا لها دمد كسو قرمدي خير ينهل يبراقو يبشبش بورجين هي أجر يا حسنات الله kani waa hoyga Hibe Maxamed Xasan xaalku waa uu ka duwan yahay sidii hore farxad iyo reereen ayaa ka jirta halkan kadib in ka badan 20 saacadood oo xaalad murugo tiiraanyadeeda leh ay ka taagneed ciidamada ammaanka galmudug ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen gaari ay ku afduubneed Hibe xilli uu ka gudbayay kontaroolka magaalada Guriceel dadkii kale ee la socday gaariga ayaa gacanta lagu dhigay waxaana la sheegay in ay socoto baaritaan la xiriira arintan hooyo xalwo ayaa u mahad celisay dhammaan intii la qaybsatay murugada iyo intii isku hawshay baadigoobka gabadheeda waxaa la helay Hibe Maxamed Xasan oo aan hooyadeed ahay 6 saac ayada isoo wacday alxamdulillah shukri ilaahay baa mahad iska leh shalana kurbaa qabay maantana farxadaan jooga ilaahay baa shukriga iska leh marka koowaad oo boqorka ah 6 saac isoo wacday waxaan ila xagee ku sugantaa Guriceel meel banaanahan jooga gudaha galbaan oran alxamdulillah ciidamada amniga ayaa haya gacanta ku haya oo baaritaan ku haya dadka dariskayga ah ama walaalahayga ah ama muslimiintayda ah ayagana waa u mahad celinaa oo ila kurbooday oo ila daqnaday alxamdulillah shukri ilaahay khayr badan ayagana ha siiyo qaar ka mid ah ehelada iyo dariska Hibe ayaa iyaguna dareenkooda farxadeed ka muujiyay helida Hibe oo saacado ay ka murugeysnaayeen afduubkeeda farxad iyo reereyn baan maanta markaan ku jiraa awalna murug baan ku jirnay dawladda qabatay iyo dadweynaha qabtay iyo dadweynaha ka qayb galana waa mahadsan yihiin haday daris yihiin haday culimo u yihiin haday dawlad goboleedka galmudug yihiin ilaahay khayr badan ha siiyo allahana u roonaado waa nala dadaaleen gabadhayadii bay nala raadsheen wax khayr qaba allah ha siiyo waxaan baaq gaar u dirayaa oo la hadlayaa si gaar ah oo taagsanayaa waxa waaye dawladda amniga waa inay sugtaa dadka shacabka waxa waaye dawladna waa shacab waxa waaye hooyooyinka aabayaasha kulli dad waxa jiro ilmahooda bariiska u raadsanaa oo guryaha uga tagteen waxa dhibaato ilmihii oo guriga looga tagto oo meel walba laga aaday in la waayo cunugi dareenkayga ma sha Allah aad baan u faraxsanahay dhamaanteen awalan waxaan u mahad celinayaa Alle koonkaana keenaa Allah yaa mahadsan alxamdulillah gaar ahaan waxaan ahay qofkii ugu dambeeyay oo la hadasho markay sii baxaysay albaabka waxa ii sawirnaa hadallada igula hadashay iyo socodkeeda ay sii socotay shala ma hadli karin waa sax kama aan muuqan kaamirada laakiin alxamdulillah maanta waan hadli karaa kurbada ilaahay baa naga fayday aad iyo aad aan u farxay Hibe eedadeed aabaheed la dhalatay ahay waxaan idhaa magacayga Shamsa Xasan Jaamac ayadana waxaan idhaa Hibe Maxamed Xasan Jaamac aad iyo aad aan u farxay qof walba oo muslim ah oo cunug ka maqan yahay ilaahay ha u sahlo dhibkaas ay imaada hadeerta in dadkii ayagoo nool macnaha iska wadanayo oo dadka ka ganacsanaya imaadeenba marka dawladda Soomaaliya waxa ugu baaqeena iyo laamaha ammaanka in ay aad iyo aad u taxadaraan oo dadka afduubanayo oo dadka iska wadanayo in ay kontroolaan in ay dadka juhdi badan ay ku bixiyaan marka sidaas aan dhihi lahaa aniga Maryan Maxamed Xasan oo ah gabar la dhalatay Hibe dareenkeedu waa uu ka duwan yahay sidii shalay oo aad ay ugu faraxsan tahay in la helay walaasheed anigoo magacayga ah Maryan Maxamed Xasan waxaa u mahad celinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo gabadheeni meel gaaban naga siiyay dhammaan marka labaad waxaa u mahad celinayaa dariskeen xalaasha ah oo shalay tiiraanyo noo muujiyay dhammaan ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad meel ay jiraan haddee dal iyo dibad meel ay jiraan u mahad celinaya ayadoo ducadeeni Ilaahay noo iftiimiyay alxamdulillah qaas gaar ahaan waxaa u mahad celinayaa idaacadda Shabeelle oo ayadana nala gurmitay haddee tahay raadis haddee tahay baafin haddee tahay wacyigelin dhammaan dhinac walba idaacadda Shabeelle